laba gabdhood oo kala dhashay dalalka Vietnam iyo Indonesia ayaa cagta saaray garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur Airport. balse labadan gabdhood qorshahoodu ma ahayn inay safar galaan ama ay dal kale u socdaalaan. hase yeeshee qaybta terminalka waxa ay kamarada garoonka diyaaradaha Kuala Lumpur ay qabatay nin u dhashay dalka Waqooyiga Kuuriya oo doonayay in uu iska eego liiska dadka socdaalaya, balse ninkaasi ayaa ah nin dhintay oo soconaya. kadib markii laba gabdhood oo uu moodayay in ay dhaafayaan ay wajiga warax ka mariyeen. waxaanu durbadiiba gargaar iyo caawimo ka dalbaday ciidamada ammaanka, laakiinse way la habsaameen in wax laga qabto. saacad kadibna waa uu dhintay. Top stories on Al Jazeera. We begin with breaking news. North Korean leader Kim Jong-un's half-brother has been killed. That's according to South Korean media. CCTV footage. Reportedly assassinated. markii aan furay TV-ga guud ahaan warbaahinta adduunka waxa ay qaada dhigaysaa warkan degdeg ah balse aniga inuu ahayn wax la yaab leh. Such a kind of surprise. ninka Waqooyiga Kuuriya cid kale ma aha, magaciisu waa Kim Jong-un oo ay xagga aabba ka walaalo yihiin hogaamiyaha macangaga ah ee dalka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un. dad tiro yar ayaa og macangagnimada ku xeeran, sida safiir ku-xigeenka Waqooyiga Kuuriya u fadhiya London oo hadda gabaad ugu jira hay-adaha sirdoonka ee Koonfurta Kuuriya, kaasi oo muddo hadda sanad laga joogo soo barakacay. markii Kim Jong-un uu go'aansaday inuu sii wado siyaasadii uu jeexay awowgii Kim Sung iyo aabihii Kim Jong, waxa uu bilaabay inuu dilo dhammaan dadka looga shakiyo inay saameyn isbedel ku yeelanayaan dadka. sidaa darteed si socoshada arrintani waxa ay aniga igu riixday inaan iskaga baxo. Conclusion of defection. waxaanu yidhi Kim Jong-un waxa uu hogaaminayay in uu wax ka qabto siyaasadda walaalkii. According to marka aan soo qaato Kim Jong-un iyo taliskiisa walaalkii Kim Jong-nam waxa ka mid ahaa koox la filayay inay wiiqdo hadda ama mustaqbalka. sooner or later, afar nin oo u dhashay dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa si dhaqso ah uga safray Kuala Lumpur iyagoo u sii jeeda dalkooda Waqooyiga Kuuriya wax yar uun kadib markii uu dilkani dhacay. waxaana shakiyadii ugu horeysay ee la soo saaray ay tilmaantay in afartaas qof looga shakisan yahay weerarkaasi. What actually happened was labadan gabdhood waxa lagu soo tababaray sida wajiga loo mariyo ee loo sameeyo. sidaa darteed ka hor intaasi waxa laga shakisnaa in afar ay gacmaha marsanaayeen walaxda dareeraha ah. balse dawladda Waqooyiga Kuuriya waxa ay si adag u diiday in dambigaasi lala xiriiriyo dalkeeda. maxaa aynu halkan uga arki weynay dadka dambigaasi looga shakisan yahay? waxa jiray dad badan oo Malaysia ka dhoofay maalinta. waa maxay sababta dadkayga oo kaliya looga shakisan yahay? diidmadaasi Waqooyiga Kuuriya ay ku diiday in wax lug ah ay ku leeyihiin dilka Kim Jong-nam, balse caasimadda Koonfurta Kuuriya ee Seoul wax yar 200 oo kiiloomitir u jirta caasimadda Waqooyiga Kuuriya ee Pyongyang ayaa dilkan ku macneeyay dambi ka dhan ah bani'aadantinimada iyo inuu yahay fal argagixiso. waxaanay farta ku fiiqeen hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un. North Korea is a really troublesome. Waqooyiga Kuuriya waa dal rabshad badan sida aad ka arkayso shirqoolkan. xataa waxa ay taageeraan weeraro argagixiso. Even if North Korea have thousands of missiles, if they don't. Hun Jiang waxa uu dhinaca difaaca kala taliyaa Koonfurta Kuuriya isagoo si dhow ula socda wadanka ay dariska yihiin ee Waqooyiga Kuuriya. Is the typical Scud launcher. markii haddaba labadan gabdhood ay jidgooyada u galeen Kim Jong-nam maalin cad waxay ku hubaysnaayeen walax North Korea ay si ballaaran u rumaysan yihiin in laga tagay oo ah hubka kiimikada ah ee loo yaqaano VX.
VX waa hub kiimiko ah oo aad u xun oo lagu isticmaali karo goobaha dagaalka, balse haddii aad qof ku dilayso waa habka ugu wanaagsan ee aad shaqadaasi ku qabanayso. haddii ay indhaha ka gasho waxa la hubaa in 100% ay qofkaasi dilayso. waxay u isticmaaleen 2 gabdhood inay weerarkaasi fuliyaan. gabadha koobaad waxay walaxdaasi ka marisay indhaha iyo wejiga, halka gabadha labaad oo iyaduna walax kala sidatay oo ahayd sunta VX. haddii aanay sida ay samaysay ee ah inay suuliga iskaga soo maydho aanay samayn may badbaadeen. xaqiiqdiina dilkan habka loo adeegsaday waa mid maskaxaysan marka aad u eegto qaabka loo soo alifay. kamirada ammaanka garoonku waxa ay qabatay gabadha 28 jir ah oo u dhalatay dalka Vietnam oo sii baxaysa kadib markii ay gacmaheeda soo maydhay, balse funaanada ay xidhnayd oo ay ku xardhan tahay loo ayaanay ka iman oo weli ay xidhan tahay. Dowen Thi Huong waxa ay ku soo barbaartay tuuladan oo ku taala waqooyiga dalka Vietnam, waxaanay tuulada ka soo tagtay muddo hadda 10 sano laga joogo. nolosheeda cusubna waxa ay xabaashay sawirro ay gashay oo ay soo dhigtay bogga ay ku leedahay Facebooka maalmo uun ka hor intii aanay dilka geysan, waxaana la tilmaamay inay gabadhani lahayd riyo weyn. hase yeeshee Dowen 48 saacadood kadib markii dilku dhacay waxa ay dib ugu noqotay garoonka diyaaradaha waana la xidhay. haweeneyda kale oo ah 25 jir u dhalatay dalka oo la yiraahdo Aisha waxa maalintii labaad laga soo xiray Kuala Lumpur Hotel oo ay joogtay, waxaana labadan gabdhood bileysku u sheegeen in la siiyay $100 oo ay u malaynayeen in ay kaga qayb qaadanayeen show television.